الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ku guda jirnaa 10 maalmood ugu fadli badnaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku dhaartay oo Ilaahay wal fajri wa layaalin 10 10 maalmood Ilaahay uu ku dhaartay waa 10 maalmood ugu horeeya Dhul-Hijja waa maalmo aad u fadli badan Ilaahayna uu weyneenayo oo na sharfay subhanahu wa ta'ala. 10 maalmood waxaa kamid ah yawm Arafah. maalinta Arafah ayaa kamid ah maalintaasi uu nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam. maalin ma jirto adoon laga xoreeyay maalin ka badan ma jirto adoon laga xoreeyay naarta maalinta yawm Arafah. maalinta Arafah waa maalin aad u fadli badan. maalintaas ayaa nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa maartay inay tahay maalin qofkii sooma Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u dumi dhaafayo sanadkii tagay iyo mid ka soo socda. Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalintaasi isagoo weyneynaya oo na sharfiya ta'dhiiman wa tashriifan wuu ku dhaartay was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud wa shaahidin wa mashhud. yawmul maw'ud yawmul qiyaamah ayaa lagu tilmaamay maalinta qiyaamah inay tahay, yawmul mashhudna inay tahay yawm Arafah. waa maalinta Arafo. maalintaas ayaa ah maalin ay xujayda isugu imaan doonto oo nabiga uu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam al-hajj Arafah. hajj wa Arafo hadoo maalintaas qofka sooma Ilaahay uu dami dhaafaya sanadkii tagay iyo mid ka soo socda. maalintaas qiimaha badan ayaa waxay ku soo aaday yawmul jum'ah. maalin jum'ah ay ku soo aaday iyadana fadligeedii bay leedahay oo nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam maalintaas ugu saliya oo maartay maalinta saliga in la badiyo ayuu nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo waa isoo gaar saligiina uu soo gaaraya oo uu tilmaamay nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaana ku jirta saaca oo nabiga ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam adoon ma waafaqay illa haduu waafaqo waa laga ajiibaya saacad. waa yawmul jum'ah. maalintaasi yawm Arafah ee jum'ana ku soo aaday ee fadliga badan ayaa nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inay tahay maalin qofka hadii uu indhihiisa iyo dhagihiisa ilaaliyo Ilaahay uu dambi dhaafayo. maalintaasi in qofka bini aadamka inuu maartay uu dadaalo oo indhihiisa xaraamta ka ilaalisho dhagihiisa xaraamta ka ilaalisho. maalinta jum'aha ay ku soo aadayna jum'a waxay noqotay sayyidul ayyam. waxa weeyaan waa sayidkii waa ciidul usbuuc weeyaan. maalintaas ayaa waxa la rabaa in maartay kaligeed in la soomo waa makruuh. lidaalika ayaa waxa fadli badan in maalinta ka horeysa la soomo. jum'a ayaa inta badan qofka raba inuu soomo soon waa laga hormarsiyaa ama waa laga dambaysiyaa. jum'ahan soonka aad soomaysid inaad ka hormarsiyo ayaa fadli badan, kadibna soomi kartid oo maalin ciid weeyaan. sidaas ayaa fadli badan. laakiin qofkii ay maartay maalintaas soomo fala ba'sa bihi dib malahan oo uu soomi karaa. lidaalika nabiga alayhi salatu wasalaam fadligaasi gaarka uu ku tilmaamay yawm Arafah ayaa waxay tahay in maalintaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu karaamay uu weyneeyay inaan anagana weyneyn. nabiga alayhi salatu wasalaam fi hajjatil wadaa' wa maalintu taagnaa waa maalin jumco bay ahayd, yawm Arafah bay ahayd. uu leeyahay inna dimaa'akum diigiina iyo maalkiina iyo cirdigiina waxa dushiina ka xaraam ay ka tahay. nabiga wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam diigiina xaraam bay ka tahay oo maartay inaad isdishaan, inaad isdhacdaan, inaad maartay aad wax cirdigiina wax isaga dhacdaan alaykum xaraam bay ka tahay buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam. marka adami la yamuud buu nabiga sallallahu alayhi wasallam dhiiga dhiman maayo. maalinta qiyaamah waxa ugu horeeya ee maartay la xukmin doono waa dhiiga. marka dhiiga dhiman maayo. waxaan marka intaas aan isugu dardaarmeynaa in maalintaas Arafah laga faa'iideysto soonkeedii. udhiyada ayaa waxay tahay waa maalinta tobnaadka bisha Dhul-Hijja. waa maartay waxayna ku beegan tahay maalin sabti ay ku beegan tahay. maalintaas nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay maalinteena tan ah waxaynu ku bilaabeynaa oo marka ugu horeysa amalka waxaan ku bilaabeynaa waan soo dukanaynaa kadibna waan soo laabanaynaa oo gowrici ayaan sameeynaynaa. qofkii oo maartay gowraca salaada ka hor sameeya waa hilib
ehelkiis u hormarsaday ayuu nabiga ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam. ama qofkii salaada kadib waa salaada ciid kadib ee udxiyada ee sameeyana waxa weeyaan maartay nusukii ee maartay iyo sunnadii ayuu waafaqay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam. hadaba udxiyada ma sunna mise waa waajib? waa sunna muakkada weeyaan. qofka maartay qofkii awoodo ayaa sidaas sameeynaya. udxiyadana waxa laga rabaa maartay qofkii awoodo ayaa laga rabaa, qofkana awoodin laga ma rabo. qofka udxiyada bixinaya waa maartay waxa laga rabo udxiyada waxa ka gudaya qofka xoolaha uu soo gadaya inay noqdaan inaysan cayb lahayn, inaysan indha lahayn, weersho ahayn, ee lug jabnayn, ee caate ahayn, xanuunsanayn, jiis ahayn. intaas laga rabaa xoolo nadiif ah. sababta ilaahay waa tayyib, la yaqbalu Allahu illa tayyiba. ilaahay subhanahu wa ta'ala waa wanaagsan yahay oo wax wanaagsan buu aqbalaya, wax oo maartay aan wanaagsaneyn ceeb leh ilaahay aqbali maayo. marka udxiyada sidaas ayay noqonaysaa oo maartay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ahadkiina markuu wax gowracayo ay maartay mindida hasoofay buu yiri hana ugu raaxay gowraca. marka gowrac marka la sameeyna bismillaah ayaa la leeyahay, kadibna maartay mindida waa la afeynaya, si fiican ayaa loo afeynaya. sidaas ayaa maartay takbiirtan waxay bilaabanaysaa habeenka ciid ay bilaabanaysaa, waxay maartay maalinta yawm Arafah bilaabanaysaa, takbiirta bilaabanaysaa ilaa iyo waxay soconaysaa maalinka 13aad ee Dhulxijja. waa tobnaad 12 maalinta ciid waa tobnaadka ilaa 3 maalin ka dambeys way soconaysaa. udxiyadana ilaa iyo 3 maalin ayaa ka dambeys ay sidaas oo kale. qofkii maalinta kuwaad maartay aan awoodin maalin labaad, maalin saddexaad ilaa maalinta afaraad ama ciida 3 maalin ka dambeys udxiyada waa la sameyn karaa. qofkii intaas maartay maalintaas waafajiya khayr weyn ayuu waafaqay. wallahu subhanahu wa ta'ala alam.